marnaba suurtagal maaha inay iskhilaafaan xaqiiqa cilmiya oo xaqiiqa ah oo aan ahayn theory iyo nadariyaat iyo wax la filayo iyo kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu wasallam alayhi yani wuxuun bay ku xidhantahay haddaad aragto iyagoo si uun isu khilaafsan inta ugu badan leh ama nadariyadan sayniska aan sax ahayn ama ayada sidan aad u tafsiiraysan sax ahayn ama si aqoonta basharka aan wali meeshii gaadhin مثلا ilmuhu labiya dhadi ku noqonayo maxaa sababa saynisku in badan buu waday kolba waxba la sheegi jiray bariyay hore sixirada marba la oran jiray haddaad waxa samayso markaad inta samayso haddaad salaantaada u tagto ina may dhalaysaa waa una qoomihii basharku soo wadwaday waa la soo waday hadday islaamtu waxaan cunto ilmay dhalaysaa hadduu ninku waxaan cuno ilmu dhalaya waa la soo waday waxay soo gaadheen xad markii dambe ay yidhaahdaan bas islaamtu shaqaba kuma leh chromosomiskeedu waa egas shaqa kuma leh waa un ninka mima indaafiqa ninka uunba dakarka iyo unsuuba ka yimaada ninka oo keliya ayaa egas aan waay dabeetana labada tan aayaadka quraani way sheegayaan ninka kan من مني يمنى إنه إلهي كابو رمحي الذكر والأنثى لكن حديث النبي قال وحي كلوس شيء هوين كما قاد هدي علو أما السبق السمايان إنه أنثى نقنيه نين كما قاد هدي علو أما السبق السمايان إنه محي ذكر نقنيه بس على ذا سايرس كهروف فهم كرواي biyahan kuwan haday kor noqdaan iyo kuwan haday kor noqdaan wareega si way gaban ninkaasi daba yiraahdaan gabadho eegasaga sunbaysida therefore gabadho shaqo kuma leh ee waa ninkuun hadii eegaskiisu la kulmay hadii waygiisu la kulmo chromosome-ka ninku maadaama uu isagu yani asliyan unuga qofka bini aadamkii ka kooban yahay waa 46 chromosome hal unuga qofka bini aadamka ku jira ayuunba 23 waa unuga taranta unuga tarante gabadhu waa 23 unuga tarante ninkuna waa 23 labada 23aad ba markay isu tagaan waxay noqdaan maxay 46 unuga ragga ee taranta ayaa marka wuxuu isugu jira mid 23 dhadiga iyo mid 23 laba haweeneyda keedu waa 23 dhadiga oo qurba leeyahay laakiin 23 ka dhadiga haweeneydu haday 23 kii dhadiga ninka la kulantana dhadig buu noqdaa haday 23 kii laba ninka la kulantana nin buu noqdaa saadaradeed bay yiraahdeen gabadhu markasta dhadiguunba ka soo socdo saadaradeed ma shaqaba kuma leh dhawaan waqti aad u dhow ayaa waxa la ogaaday mas'alad dambe oo madaxeeda ma joog rogtay waxa la ogaaday beedka haweenku dawladda inta uu ku soo jiro inuu electrified noqdo dabeetana inuu ama positive noqon karo ama negative noqon karo ama neutral noqon karo hadduu positive noqdo iyo hadduu negative noqdo iyo hadduu neutral noqdo waa saddex qadiyadood oo kala nooc ah waxay kala ogaadeen manida ninku spermska agaska iyo kuwa waaga inay qaarna positive iyo qaarna negative yihiin islaanta beedkeeda oo negative ah xaaladu joogo haddii maxaa aqbali karaa hadduu negative matalan yahay negative iyo positive unbay soo jiita hadduu ka kalena negative yahay maxaa dhacaya weeraysa idan islaanta beedkeeda oo negative hadduu ninka labka kiisa labu negative yahay maxaa dhacaya weeraysa chance male uu ku laboobo ilma dhalanaya waa inuu noqdaa un kan kale ee positive ka inuu la kulmo hadduu cagsiga islaanta beedkeedu yahay maxaa dhacaya kii positive ka bay weeraysa de Soomaha two positive ismiye kulmaan magnetismka marka dhigan jirteen muxuu aan jiray wixii soo eegana waa kala yaacaan wixii kala gadisanina way soo jiitaan Soomahayn waxaynu islaanta beedkeedu wuu isbedeli karaa wuxuu noqon karaa positive wuxuu noqon karaa negative wuxuu noqon karaa neutral saddexdaba uu noqon karaa labka iyo dhadigan wadaygu sidaana midna waa positive midna waa negative idan chances ka inuu ka negative ki la kulmo kan waxay ku xidhantahay inaanu kan ahayn sina negative hadduu negative noqdo waa maxay rebellion baa dhacaya marka waxay sawiraan marka maridii ninka
ومثلا أنت كان النيجاتيف نقطة كويسي نيجاتيف كهيدي بصياع يعني نبات كغفتان حق يسداي كوي بوزيتيف كقرا يكون سعودان إذا تشاينسكي لبنمده والله عكسك تشاينسكي ددقنمده والله markay bos neutral ka tahayna labadaba waa aqbalaya bay yiraahdaan two different charges bay wadataa labadaba soo jeedan kara idan hadda waqti aad u dhow ma ha waqti fogba scientifically waqti aad u dhow oo researchskeedii socdaan bay waxay ogaadeen inuu dakhli ku leeyahay haweentu xaaladda ay ku sugantahay bal waxay yiraahdaan 70 to 80 days sanadkii ayay negative 70 to 80 days sanadkiina waa positive inta kalena bay yiraahdaan waa ahayna حتى مالمهي بين كويين 70 كاس حاجه ku dhacayaan waa mas'ala kale حاجه ku dhacayaan waa mas'ala kale laakiin waxay leeyihiin 70 to 80 days ay negative tay that means 70 to 80 days ayaa chances ka ugu badan uu yahay inuu noqdo ilmuhu lab 70 to 80 days na chances ka ugu badan ilmuhu wuxuu noqonayaa maxay dhadig inta kalena waa chances isleeg bay leeyihiin dhadig iyo lab ku noqonayo waxyaabo kale oo badan oo xukuumada waa jiraan عموما ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا waxay leenahay saynisku koris buu ku jiraa koris ayuu ku jiraa maalin walba shalay waxaan la ogeyn baa maxay maanta la soo ogaanaya laakiin qaacidada rasmiga waxay tahay wax kasta oo taxta al-mushahada yimaado intii ugu dambeysay la arkaa inaanu khilaafi karin nusuusta daahirkeeda caamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyay quraanka iyo waxyigu quraanka iyo sunnada nabiga salawaatu ullaahi wa salaamu calayhi sugaysa